baydhabo waa lagu kala baxay lafta Grena waa uu tagay kadib 7 sano oo koonfur galbeed hogaaminayay saaxiibadii ay wada dhisteen xisbigii GSB iskuna dhaarsadeen inay is aaminaan oo dib isku dhisaan ayaa ku soo jeestay oo laqay shaqadii ay isla jamaadeynayeen maalmihii ugu dambeeyana waxay sheegayaan in dadka deegaanka u tiran in lagu dul dagaalamo iyaguna ay yihiin madaxdii sharciga ahayd ee deegaanka wax ka yar 72 saacadood kadib markii ay ka soo wareegatay doorashadii halka maalin ee ka dhacday halkan wax kasta oo dhacay hadda waa dhiganayaal laga soo gudbay oo aan goobjoog u soo hayn xaaladan si degdeg ah waxa uu abuuray in sidan ay isugu bedesho waajangooyaha oo aan qaadan door u heelinaya dhinaca Cabdilcasiis Laftagreen waana dhinaca Addis Ababa iyo Ethiopia sidaan bilo ka hortabinay Addis Ababa way shakisaneed in dhinacyadu ay dib isku aaminaan waqti dheer ayay u baahatay masadeen dhinaca kalena waxaan shakirahay in shaqo dheer oo la qabtay iyo dadaal ay garwadeen ka noqdeen mucaaradka qaarkood aysan hadda u miro dhalin sida ay filayaan sababtoo ah Ethiopia ma noqon xalif si firfircoon u hawlgala bedelkeedana waxay qaadatay aragtida ah daawada aan xiiso badan u haynin ciyaar siyaasadeed taabanaysa mustaqbalkeeda dhinaca ammaanka tamintan waxaynu ku eegaynaa madaxweyne xasan sheekh iyo fiila Soomaaliya maxay uga dhigan tahay dacdada Baydhabo adeega Wire Nations waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga Yurub ama Canada aad ehelkaaga Afrika ku sugan si toos ah lacag ugu diri karto qiimo ku qanciya iyo degdeg siimo kala soo deg hadda Play Store ama App Store Wire Nations adeeg loo bogay lana mahadiyay Baydhabo waxaanu ka baranaynaa hadda sida muuqata sida dawladaha waaweyn ay korka uga heshiin karaan go'aanadooda iyo danaha ay ka leeyihiin Soomaaliya hogaamiyaasha Soomaalidu faham badan kama haysan halkan sida muuqata ku dhiiqashadii qaybaha mucaaradka qaarkood ayaana durba sii sawirtay cidda isku haysata hogaaminta dalka hadii la aado doorashooyinka dhow madaxweyne xasan sheekh maxamuud halkan waxa uu arkay aag uu ku gaaray guul weyn oo siyaasadeed mashruucyadiisa doorashooyinka inuu adkaysto safka dawlad goboleedyada uu sii haystay ayuuna u dabaaldegaya waa dhabshan faa'iido waa ka helaya laakiin laba qodob oo halis ah waa ay ku dhex daawan tahay dad badanna waxa ay ku fasirayaan in madaxweynuhu hadda uu dhexda kaga jiro farxadan dhab ahayn maxaa u kordhaya xasan sheekh masraxiyad dhaanteeda talaabada Baydhabo waxay madaxda dawladda federaalka gelinaysaa farxad siyaasadeed aan sal lahayn waxay isu sawiraysaa fiila Soomaaliya inay leedahay awood siyaasadeed iyo mid ciidan oo ay ku gaari karto go'aano taabanaya riixidda mashruucyada siyaasadeed Soomaaliya muddo dheer waxay ku jirtaa nidaam federaal oo si weyn aysan madaxda tagtaa xukunka sare u jeclayn dhacdada cusub ayaana hilaadinaysa in awood ciidan oo toos ah laada dhinac kastaana halkaas umaankiisa ka guuxayo shaki male in madaxtooyadu maanta ku dabaaldegaysa talaabadan una tahay mid muhiim ah laakiin sida uu waaqaca wax uga bedeli karo miisaska siyaasadana loogu dulfalkin karo lama yaqaano ilaa hadda 2018 isla ficilkan mid ku dhow oo kale ayaa ka dhacay inkasta oo dadka ay ku dhinteen lana xiray musharaxii la tartamayay lafta Green 7 sano ka hor haddana fiila Soomaaliya waxay sheegaysaa inay sameynayso wixii hore loo sameeyay cabsigelin siyaasadeed oo ku socota dawlad goboleedyada kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa fariin Baydhabo uga diray qoorqoor iyo cali guudlaaw ka hor inta uusan la kulmin toddobaadka soo socda waana inaysan ka hor imaan karin damacyadiisa siyaasadeed oo ay ku khasban yihiin inay ku cibro qaataan lafta Green oo aad uga durugsanaa Muqdisho laakiin ciidan la dhaqaajiyay awgeed cadaadis la saaray kuna baxay ugu dambeyn marka loo barbardhigo Dhuusamareeb ilaa Jowhar way ka duwan yihiin xaalka Baydhabo hanjabaadda dhinacyadan ayaana si fudud loogu adeegsan karaa waxay kaloo ka dhigan tahay in haddii ay ka hor yimaadaan jihada fiila Soomaaliya ee qabashada doorashooyin isku sidkan ee bishan lagu soo wajahan ay la kulmi karaan cadaadis la mid ah kii Baydhabo saaxiibada madaxweynaha ayaana sheegay in haddii ay hore wada hadal u doorbidayaan hadda ay kaarka hanjabaadda dul dhigi doonaan madaxda dawlad goboleedyada safkooda ku jira saami qaybsigana la wadaaga taasi waxay siinaysaa xasan sheekh maxamuud awood dheeraad oo ku maamulayo jihada siyaasadda ee safkiisa ma ogtahay in Dr. Shaafici Aadan Dirir loo aqoonsaday dhakhtarka qalliimada ugu wanaagsan dalkeena Soomaaliya ahna dhakhtarkii ugu horeeyay ee dalka ka fuliya qalliimada casriga ah ee laserka uu heegan kugu yahay isbitaalka Shaafici ee magaalada Muqdisho xakamaynta doorashooyinka iyo mustaqbalka siyaasadeed ee dalka mid ka mid ah ujeedooyinka waaweyn ee dawladda federaalka ee halkan waa nidaamka doorashooyinka dhacdada Baydhabo waxay si toos ah ula xiriiraysaa cidda maamulaysa geedi socodkaas iyo jihada loo dhaqaaqayaba tan fiila Soomaaliya waxay sheegaysaa inay uga dhigan tahay inay gacanta ku dhigto jihada doorashooyinka dawlad goboleedyada safkeeda ku jira oo ay soo maamusho ka hor intii aysan kala hadlin golaha mustaqbalka ama mucaaradka gabi ahaanba hanaanka doorasho ee lagu bedelayo xukunka heer federaal iyo talabaad waa in la xakameeyo ama la tirtiro si mucaaradku faragelin ay ugu yeeshaan heer dawlad goboleed oo safka madaxtooyada aysan saameyn xisaab badan ayaana halkan ka soo laabanaysa dhammaan siyaasiyiintii lafta Green u hambaliyayna toos u taabanaysa tan shaki male inay muhiim u tahay mustaqbalka siyaasadeed ee xasan sheekh maxamuud ha yeeshee sida dheef loogu rogi karo xataa kooxda madaxweynuhu
aqoon badan kama haysato. 4 wakiilada caalamiga saacado un ka hor intii dhacdada Baydhabo aysan dhinac u dhicin madaxweynaha ayaa u sheegay wakiilada caalamiga inuu Soomaaliya ka qabanayo doorashooyin qof iyo cod jid kalena uusan jirin oo uusan hayn laakiin dhankooda ma aysan ka baaqsan in loo baahan yahay in madaxweynaha ay u sheegaan wada hadal loo dhan yahay iyo doorasho loo siman yahay hayeeshee kulul ujeedadiisa loo dalbay waxa ay in madaxweynuhu isugu muujiyo wakiilada caalamiga gaar ahaan kooxda loo yaqaan C6+ afarta awood dalana ay gaar u siiyeen inuu yahay hogaamiye fulin kara damacyadiisa oo awood ciidan haysta laba halis oo muhiim ah ayaa hortaala fiila Soomaaliya korinta kala qaybsanaanta federaalka inkastoo guusha Baydhabo ay u muuqatay mid degdeg oo fiila Soomaaliya sheeganayso inay adkaysanayso haddana waxay ka tagaysaa halis ka badan farxadda aan la taaban karin ee saacadaha joogaysa Soomaaliya oo dal sagaal sokeeya ay wali ka muuqdaan raadkooda dib dhacyadu sareeyaan kala sagnaantana xoogsan tahay waxa kordhi doona isdiidooyinka siyaasiga dareenka kala taga ama gooni goosadka ama mucaaradka ayaana xoogaysanaya taas oo taabanaysa galka midnimada sidoo kale sida uu maareeyay arinta Baydhabo madaxweynaha waxa ay ku tahay mid aan si toos ah uga hari doonin gaar ahaan haddii uu aado jihada doorashooyinka iyo cidda tallaabada si hogaaminaysa geedi socodku waxay uga dhigan tahay waxaan wanaagsanayn ma aqbali karo in saaxiibada lafta garan ay sii joogaan sidoo kalena ma liqi karo oo ma geyn karo saaxiibadiisa siyaasadeed oo si fudud kuma kala xukumi doono Somaliland hore waxay u qaadatay tallaabada geeni socodka waxayna hadda helaysaa deef weyn oo siyaasadeed dad badan oo aragtidooda diidana ayaana hadda u arka in dhabahaas wixii loo aaday ay wali jirto taana waxay dhaawacaysaa nidaamka federaalka ee Soomaaliya oo horeba u jilicsanaa khatar amni iyo kacdoon cusub aminta dagaal siyaasadeedku isku bedelo adeegsiga awood military mar walba waxa jira halisa in ficilada noqdaan kuwa mustaqbalka si xun u taabanaya go'aanka Baydhabo laga gaaray ayaana abuuraya ka hortag siyaasadeed oo ay ku khasban yihiin siyaasiyiinta hanka leh madaxtinimada laakiin sida ay uga dhabayn karaan iyana lama yaqaano awoodaha hawaysan ayaa kordhi kara taasoo madaxda dawlad goboleedka ku riixaya inay go'aansadaan marxalad dhaba oo ay ugu qaadanayaan waxa haatan dhacay mucaaradkii hambaliyay oo dhamasho siyaasadeed aadaya kasoo kabuubisada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo isku muday dhinaca kale iyana waxa jira oo ay qasab tahay in la xuso dhammaan dhinacyadii maalin ka hor taageeray geedi socodkiisa cala qaatay ee doorasho ayaa halkan fooda iyo albaabka iska soo xiraya wayna adag tahay in si ay bulshada uga iibiyaan doonista doorasho hufan oo furan dooni raabitaankeeda inkastoo halkan ay Soomaaliya tahay haddana dhacdada Baydhabo musharaxiintii rajada ka qabay inay walaal siyaasadeed uga soo baxay halkan ayaa dhimasho abadiya oo aysan hore qorshaha ugu darsan ay ku dhaceen iyadoo hadda waxa cusub ay tahay waxaysan jeclaysanayna ugu dambeyntii Baydhabo ma aha dhamaad waa bilow cusub oo go'aamin doona jihada siyaasadeed ee Soomaaliya sanadaha ama bilaha soo socda ku soo dhawow Daarul Asnaan Dental Clinic xarunta daryeelka ilkaha oo tayo sare leh war farxad leh adeegyada casriga oo ay ka mid tahay beerista ilkaha ayaa hadda diyaar ah Hindiya inaad aad uma baahnid Garowe iyo Boosaaso aad ka heli kartaa ilka maqan Daarul Asnaan Dental ayaa ku haya hal waar caafimaad leh